waxay ahayd maalin Arbaco ah abaarihii 11kii subaxnimo 14kii Juulaay 2019. Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow. Waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo 3 maalmood kadib oo ku beegan maalinta Sabtida. Waxay ka codsatay in marka uu gudoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaariyo. dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo kaliya ayaa xafiiska ka shaqeeya waxbana uma qaban karo ayay tiri. abaarihii 1 duhurnimo ee maalintaasi Basiira waxay gashay xarunta gobolka Banaadir ku dhawaad 4:00 galabnimona waxaa qolka shirarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan. qaraxaasi waxaa ku dhintay 6 ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka Banaadir. goor dambana waxaa u dhintay 2 qof oo ku jiro gudoomiyihii gobolka iyo duqa magaalada Muqdisho Allah u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. liibaan oo ah magacaan ugu yeerayo mas'uulkii ay subaxdaasi la hadashay Basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka Banaadir isla galabnimadii. habeenkiina waxaa loo sheegay in la la'yahay Basiiro loona malaynayo inay qaraxaasi ka dambeysay. liibaan waxa uu qaadan waayey in gabadhii kala hadlaysa danta guud ay isqarxisay. shaki ayaana galay laabtiisa. haddana waxa uu isweydiiyey in ujeeddada ay u soo wacday ay ahayd marin habaabin si uu uga sheekeeyo sida uu haddaba ugu warramayo galka baarista. qaraxaasi waxaa markiiba ku dhintay 6 ka tirsan saraakiisha gobolka. toddobaad kadibna waxaa dhaawacii soo gaaray u geeriyooday gudoomiyihii gobolka Banaadir Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariisow. dowladda Soomaaliya waxay rasmi ahaan u sheegtay in qaraxaasi ay ka dambeysay Basiir Cabdi Maxamed iyo gabadh kale oo kalkaaliyo u ahayd taasi oo la la'yahay laguna magacaabo Degan Cabdullaahi Cali. su'aalaha ay dad badan isweydiinayeen ayaa haddaba ah sidee ayay Basiir Cabdi Maxamed shaqo uga heshay gobolka Banaadir? yaa u geeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir si uu shaqo u siiyo? maxaa muujinaya in gabadhan ay xiriir la lahayd ururka Al-Shabaab iyo su'aalo kale? galka baaristu waxa uu isku dayayaa inuu ka jawaabo su'aalahaas iyo kuwo kale. bishii Disembar 2011 Basiir Cabdi Maxamed waxay iska diiwaan gelisay iskuulka Al-Nuur ee dadka naafada ka ah aragga ay wax ku bartaan. waxay xilligaasi gashay fasalka 2 waxaana la barayay farta ay wax ku akhriyaan dadka aragga la. magaca ay isku diiwaan gelisay waxa uu ahaa Basiir Cabdi Maxamed. waxaa galka baarisi uu xaqiijiyey in magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abikar. markii ay iskuulka gashay waxay bilowday firfircooni. waxay munaasabadaha iskuulka ka tirin jirtay gabayo buraanburo waxayna ahayd qof soo jiidasho leh sida uu galka baarista u sheegay mid ka mid ah macallimiintii wax u dhigi jirtay. bishii May 2014 waxay ka wareegtay iskuulka Al-Nuur kadib markii ay baratay farta wax lagu akhriyo ee loo yaqaan Braille-ka. waxayna markaas u sheegtay maamulka inay tegayso iskuul ay dhigtaan dadka waaweyn. waxay bilowday firfircooni iyo inay dhex gasho bulshada. waxay xubin ka noqotay guddiga dadka naafada ah. sanadkii ku xigay ee 2015 horaantiisii waxay aasaasay ururka horumarinta haweenka oo lagu magacaabo Sawdo. bishii Maarso 23keedii 2015 waxay kulan la yeelatay madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud. xubnaha dadka naafada ah oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed ayaa ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 qodob oo kala ah: inay Soomaaliya saxeexdo xeerka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, in xafiis laga siiyo dadka naafada ah madaxtooyada Soomaaliya, in la dedejiyo sharciga naafada Soomaaliya, iyo in la qabto shirweyne qaran oo dadka naafada ah oo gobolada oo dhan ay ka wada qayb galaan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 4taasi qodob ka hirgeliyay mid ka mid ah kaasi oo ahaa inuu dadka naafada xafiis ka siiyo madaxtooyada, iyadoo 3da kale ay harsan yihiin ayuu xafiiska ka tegey. markii ay dhalatay dowladda cusub dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxay si anba qaadeen ololahoodii ay ku soo dhacsanayeen xuquuqdooda. isla markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada waxay kulan la yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. waxaana kulankaasi uu qayb ka ahaa mid uu ra'iisul wasaaruhu kula kulmayay bulshada rayidka ah iyo dad kale oo waxgarad ah. kulankaasina waxa uu dhacay bartamihii 2017. waxa ay shirkaasi ugu sheegeen ra'iisul wasaaraha inay doonayaan xaqooda inay ka helaan dowladda cusub iyo gobolka Banaadir sida uu sheegay mid ka mid ah mas'uuliyiinta naafada oo shirkaasi joogay. bishii Juulaay ee sanadkaas iyadoo la daba socdo kulankii xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa mas'uuliyiinta naafada ay kulan la yeesheen wasiirkii warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan. kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta waxayna kala hadleen sidii barnaamij ka hadlaya dhibaatada haysata dadka naafada ah looga sii dayn lahaa warbaahinta dowladda. waxaa la isku soo qaaday barnaamij toddobaadle ah in loo sameeyo dadka naafada. wasiirku waxa uu soo dhoweeyey fikraddaasi.
bishii Janaayo 2020 2018 injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu ka tagay wasaaradda warfaafinta waxaana loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir bishii Maarso ee xigtay waxa uu mar kale la kulmay guddigii wakiilka u ahaa dadka naafada oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed wakiiladaasi waxay u sheegeen inay ka doonayaan gudoomiyaha inuu xil ka siiyo gobolka mas'uuliyiintu waxay dhexdooda xilkaas u soo jeediyeen inay qabato Basiir Cabdi Maxamed oo kamid ahayd hogaamiyaasha ugu cadcad mas'uuliyiinta naafada gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu guddigii u sheegay inay isaga jawaab ka sugaan 15 May 2018 injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu bixiyay jawaabtiisii waxaana uu wareegto ku magacaabay Basiir Cabdi Maxamed inay noqoto xiriiriyaha arrimaha dadka naafada ee gobolka Banaadir waraysi ay siisay Basiir Cabdi Maxamed idaacadda Mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay xilkaasi loo magacaabay arrintan waxaa la iigu dhawaaqay ama xilkan oo ay fikradooda soo baxday 15 May soo baxday fursado badan way noo saamaxeen uu horeyn dadka naafada ah oo aad u jeclaa in macnaheedu aan u qabto arrin mas'uuliyad ah oo arrintooda u ololeeyo oo xal yiraahday u ololeynay markasta in aniga aan u tago boos aan arrintooda wax uga qaban karo ama uga dhaqdhaqaaqi karo mar walba u taagnaayeen oo arrintaas maxaa la yiraahday aad u daneynayeen qodobka labaad oo ii saamaxay waxay ahayd in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan Yariiso gudoomiyaha gobolka Banaadir suuqa magaaladana ah in maxaa la yiraahdaa ay ahayd xilli isaga oo xilka haayo asigana uu ahaa qof mar walba arrimaha naafada aad u jecel haduu wasiir ahay iyo haduu gudoomiyaha gobolka Banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fariisto arrimahoodana aad u daneeyo ahay bishii Juun 2018 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xubno kamid ah dalada ururada naafada kuwaasi oo u doodaya xuquuqda dadka naafada ah mas'uuliyiinta naafada ee kulankaasi ka qayb galay waxaa kamid ahayd Basiir Cabdi Maxamed waxay dhinaca bidix ka fadhiday madaxweynaha waxaana iyada iyo madaxweynaha u dhaxeeyay oo kaliya wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqa Yaasiin bishii December 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu saxeexay sharci lagu aasaasayo hay'adda naafada qaranka safka hore dadkii fadhiyay waxaa kamid ahayd Basiir Cabdi Maxamed madaxweynuhu waxa uu hadalkiisa kaga hadlay sida loogu baahan yahay in wax loo qabto dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan dhinaca shaqooyinka ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horeyso inaan daryeelno dadkeena tabaalaysan dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisano siduu Ilaahay noogu naxariisto waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijino waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino maxaan ku rahaa daryeelkooda aan gaarsiino oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah haddii ay tacliintooda dhamaystaan iyo waxbarashadooda dhamaystaan inaan xaqiijino in ay dawladda dhexdeeda ka helaan miisaan inay ka helaan koota waxa la yiraahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo 24 Juulaay waxaa qarax ka dhacay gobolka Banaadir dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in qaraxaasi ay geysatay Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar waxaana gacan siinaysay kaaliyaheedii Degan Cabdullaahi Cali oo magaceeda dhabta ah uu yahay Hodan Xasan maalintii uu qaraxu dhacay ee 24 Juulaay labada gabdhood midkoodna laguma samaynin wax baaris ah sida ay sheegeen laamaha amniga sidoo kale ma aysan ahayn dadka kaliya ee maalintaas kale xarunta gobolka Banaadir ee aan baaritaanka marin dawladda Soomaaliyana ilaa haatan ma aysan shaacinin in cid loo ciqaabay guuldarradaasi dhinaca amniga haddaba maxaa laga ogyahay baaritaanka ku saabsan weerarkaasi dabayaaqadii bishii May 2019 Basiir Cabdi Maxamed iyo kaaliyaheeda Degan Cabdullaahi Cali waxay qaateen laba fasax oo istaba yaala fasaxa waxaa ku horeysay Degan Cabdullaahi Cali oo muddo bilo ah la shaqaynaysay Basiir Cabdi Maxamed oo iyadu shaqada keentay isla bishaas gudaheed waxaa iyaduna fasax qaadatay Basiir Cabdi Maxamed waxayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegii 26 Juun mas'uuliyiinta amnigu waxay sheegeen in labada gabdhoodba ay xilligan u safreen dhulka ay al-shabaab ka taliyaan sarkaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya waxa uu ii sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu dhaqaale dhan $10,000 siiyey Basiir Cabdi Maxamed kadib markii ay u sheegtay inay caafimaad ugu safrayso dalka Hindiya inay Hindiya u safrayso waxay sidoo kale u sheegtay ugu yaraan 2 qof oo la hadlay galka baarista
hase yeeshee baaritaankii la sameeyey waxaa caddaatay inaysan waddanka ka bixin loona badinayo inay u safartay deegaanka Toorotorow ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Basiira markii ay fasaxa ka soo laabatay waxay si weyn ugu dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadii xorriyadda ee 26 Juun iyo 1 Juulaay. mid ka mid ah saraakiisha amnigu waxa uu sheegay inay ka qayb gashay munaasabadii hore ee 26 Juun. waxaan weli caddayn inay ka qayb gashay munaasabadda labaad ee 1 Juulaay. sidoo kale waxaan weli sugnayn inay doonayso inay bartilmaameedsato madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay labada munaasabadoodba. galka baaristu waxa uu ka ogaaday wareysiyo uu la yeeshay mas'uuliyiinta amniga iyo dad ka tirsan qaraabada in Basiire Cabdi Maxamed ay xiriir la lahayd laba qof oo ku sugan magaalada Buqa Qable. labadaasi qof mid ka mid ah waxaa la sheegay inay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab, halka kan kale la sheegay inuu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab. labadooduna waxay ka tirsan yihiin qaraabada Basiire Cabdi Maxamed. mid ka mid ah labadaasi qof waa Xasan Maxamed Abikar oo adeer u ah Basiire Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abikar. xasan maxamed abikar waxa uu ku sugan yahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan. laba ilo wareed oo mid uu ka tirsan yahay laamaha amniga kan kalena ehelka Basiire Cabdi Maxamed waxay galka baarista u sheegeen in Xasan Maxamed Abikar uu ka tirsan yahay saraakiisha Al-Shabaab u qaabilsan qaadista canshuuraha. galka baarista way u suurtageli weyday inuu telefoonka kula xiriiro Xasan Maxamed Abikar. sidoo kale laba ka mid ah ehelada Basiire waxay galka baarista u sheegeen in hooyadeed lagu magacaabo Faadumo Cali Abikar ayna ku magac dheer tahay Shiino. waxay ku nooshahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. labadaasi qof waxay sidoo kale galka baarista u sheegeen in hooyadeed ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xarakada sida ay hadalka u dhigeen una abaabula taageerada dumarka iyo ururinta taakulaynta. mid ka mid ah ehelada Basiire waxa uu galka baarista u sheegay in hadda ka hor Basiire uu soo doonay inay isku barteen magaalada Muqdisho, balse hooyadeed ay diiday iyadoo ku adkaysatay inuusan gabadheeda guursanayn nin aysan ka soo urayn rasaasta mujaahidiinta sida uu hadalka u dhigay. qof saddexaad oo ka mid ah ehelka Basiire Cabdi Maxamed wuxuu galka baarista u sheegay in hooyadeed ay ka mid tahay dadka naafada ka ah dhinaca aragga. mar aan weydiiyey hooyadeed inay u dhaqdhaqaaqdo ururka Al-Shabaab waxa uu ku jawaabay deegaanka dadka jooga haddii aysan saamayn ku lahayn waxba kuma ogi. Basiire aabaheed Cabdiraxmaan Maxamed Abikar waxaa la sheegay inuusan ku noolayn dhulka ay ka taliso ururka Al-Shabaab, isla markaana uusan qayb badan ku lahayn nolosha iyo duruufaha qoyska ku nool Buqa Qable. galka baarista waxa uu helay xiriirka aabaha Basiire Cabdiraxmaan Maxamed Abikar, hase yeeshee lagama jawaabin telefoonkiisa. galka baaristu waxa kale oo la xiriiray xubin kale oo ka tirsan ehelka oo ii sheegay sidan: qoysku shaqada gabadha kuma ogeyn, sidoo kale laguma ogeyn inay urur ka tirsan tahay. dhacdadan waxay ahayd wax hal mar ah oo aan annaga oo dhan aad ula yaabnay. qoysku ma oga inay Al-Shabaab ka tirsanayd. ilaa haatanna ma hayno wax caddaynaya inay Al-Shabaab ka tirsanayd. waxaan weydiiyey su'aal ahayd inay xiriir la lahayd dad ka tirsan Al-Shabaab iyo in kale, waxaana uu ku jawaabay maya, wax iyada u qarsoon ma ogaan karno, laakiin annaga qoys ahaan waxaan ku ogeyn ma jirto. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay ii sheegeen in weli ay baaritaan ku wadaan sidii uu qaraxaasi u dhacay. hase yeeshee ilaa haatan dadka la xiray su'aalana la weydiiyey waxaa ku jira Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo xiran muddo 50 maalmood ah. Cabdulaahi waxa uu la dhashay Basiire. haddii haddaba Basiire ay ka tirsaneyd ururka Al-Shabaab ilaa haatan ma cadda xilliga ay ku biirto ururkaas. sidoo kale ma cadda xilliga rasmi ahaan loo tashkiiliyey. sidoo kale ma jiraan cadeymo qayaxan oo muujinaya inay xubin ka ahayd ururkaasi. hase yeeshee ehelada Basiire ma aysan beenin warka dowladda Soomaaliya ee ah inay qaraxaasi ka dambeysay. Basiire Cabdi Maxamed waxaa da'deeda lagu qiyaasay 26 sano jir, waana mid ka mid ah 16 carruur ah oo uu dhalay Cabdiraxmaan Maxamed Abikar, kuwaas oo isugu jira 6 gabdhood iyo 10 wiil oo ay kala dhaleen 2 xaas. Basiire waxay ahayd gabadh ay ixtiraamaan isla markaana ay caawiyaan wasiiro, xildhibaano iyo xubno firfircoon oo bulshada ka tirsan. waxay dadka yaqaanaa ii sheegeen inaysan ahayn qof laga shakin karo. xildhibaan Farxiye Muumin Cali waxay ka mid ahayd xildhibaano badan oo ay soo jiidatay Basiire, iskuna dayay inay wax kula qabtaan hawlihii ay u haysay dadka naafada ah darteed. Basiire waxaan aniga mar la kulmay 6 sano ka hor maraa imaaday oo aan la kulmayay dadka maaragtay aad u firfircoon civil society-ga meeshaasi ku jirtay waana 6 sano ka hor oo aan kula kulmay xamar. bal munaasabada aad ku kulanteen ama qaabka aad u kulanteen wax xiriir sheekay. markaas waxaan ka soo baxnay transitionka laga soo baxay waxaana loo baahnaa bal in la arko sidee aan dowlad wanaag u sameyn karnaa oo dowladii
iyo qaybaheedii kala duwan loo kaalmayn karaa oo loo soo dhisi karaa institutionadeennii burburay sidaasaa waxaa loola kulmaayey civil society-ga kala duwan iyadana kaasay ka mid ahayd. wax aad la qabatay oo idin dhex maray hawla ama aad ku gargaartay ma jiraan ama shaqo isugu timaadeen? shaqo gooni oo isugu imaana ma jirto laakiin shaqooyin badan meelo badan oo iyada ay ka qayb galaysa ama lagu soo casuumay oo ama wacyigelin laga bixinayay ama howlo kale laga qabanayay way jirtaa laakiin waa mar hore hadda ma detailkiisa wixiisa dhan ma ku siin karo runtii. shakhsiyadeeda wax iiga sheeg qof ahaan iyo aqoonta aad u lahayd intaa taqaanay. arrinta aqoon fog umaana lahayn magaceeda hore oo loogu yeero oo keliya basiiro ah wax loogu daro ma garanaynin markii lagula kulmo meelaha ama shirarka ama meelo kale lagula kulmo ay hadlayso oo khudbad la siiyo runtii waxay ahayd qof dhalinyaro ah qof firfircoon runtii qof haddana disable ah gabarna ah intaas markay isku darsatay runtii oo qof kar ahna ay tahay oo holi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonayso sheegi karto runtii waxaa isku daynaysaa inaad haddii aad awooddo si uun aad u caawiso si ay ugu noqoto dadka kaleeto tusaale wanaagsan ugu noqoto oo loo arkay in aadan u xayirnaaneen haddaa indha la-dahay dhiga la-dahay luga la-dahay aad shaqaysan karto wax qaban karto caawin kartana dadka adiga kula mida runtii intaasoo sifo ayay isku darsatay gabadha. basiiro cabdi maxamed waxay xubin ka ahayd xubno fara badan oo u dhaqdhaqaaqa hoggaanka dadka naafada isla markaana u dooda xuquuqdooda. hogaamiyaasha dadka naafada ah waxay ii sheegeen inay dhibaatooyin faquuq ah iyo afxumo la kulmeen tan iyo intii uu weerarkaasi dhacay. hogaamiyaasha naafadu waxay sidoo kale ammaaneen guddoomiyihii gobolka banaadir allaha u naxariistee cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow oo ay sheegeen inuu ka mid ahaa laba saaxiib oo waaweyn oo ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya. saaxiibka labaad waxa uu ahaa wasiirkii dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil oo xanuun u geeriyooday bishii maarso ee sanadkan. waxay sheegeen hogaamiyaasha naafadu in yariisow uu ahaa saaxiib u caawiya siyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaale ahaan iyo inuu ahaa qofka ugu horeeya ee ka soo qayb gala munaasabadahooda looga hadlayo xuquuqda dadka naafada ah. waxay ii sheegeen inuu dhibane u yahay naxariistii uu geystay. waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay dib ugu laabtaan wax u qabashada dadka naafada ah isla markaana ay dhammaystiraan dhismaha hay'adda naafada oo ah hawsha xigta kadib ansixintii sharciga naafada.